ugaaska guud ee beesha ciise oo ka badbaaday shirqool la rabay in lagu kala dilo isaga iyo beeshiisa somalilan oo sheegtay inay hubka ka dhigaysaa beesha ciise ugaas mustafa maxamed ibraahim oo fahmay isla markaana iska diiday waxa ay wadaan somalilan ugaaska oo maanta kulan degdeg ah iskugu yeeray cuqaashii waxgaradka beeshiisa faahfaahinta wararkii ugu dambeeyey amurta ku saabsan ayaan kuu soo gudbin doonaa waxaan kulan kula wadaagi doonaa suldaanka guud ee beesha samaroon oo ballanqaad hub ka helay beesha reesha isxaaq xilli ciisaha la leeyahay waxaa laga dhigayaa hubka iyana macluumaadka ayaan ku siinayaa waxaan kulan kuu soo gudbin doonaa ciidamo hubaysan oo ka tirsan milatariga xasan sheekh maxamuud oo goordhow gaaray magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool xasan sheekh maxamuud oo ku wajahan magaaladaas iyo amniga laascaano oo si weyn loo adkeeyey ayaan faahfaahinta ku hayaa qodobadaas iyo waxyaabihii kale nagu soo kordha ayaan saaxiibayaal idiin faahfaahin doonaa ee soo dhowaada hadday tahay markii kuugu horraysay kusoo biri daraja miidiya waxaad heli doontaa dhammaan wararka iyo warbixinada xasaasiga ah oo mar walba halkan aan ku daabacna ee soo dhowow daawade maalin wanaagsan qodobkeenna ugu horreeya ayaan dabcan ku bilaabayaa iyo ugaaska guud ee beesha ciise ugaas mustafe maxamed ibraahim ayaa ka badbaaday shirqool la rabay in lagu kala dilo isaga iyo beeshiisa ciise somalilan ayaa wufuud uu ka kooban yahay wasiirka arrimaha gudaha somalilan iyo saraakiil kale waxay u dirtay gobolka awdal ilaa xadka dowlad deegaanka si ay u dhexdhexaadiyaan ciisaha iyo samaroonka haddaba waxaa jiray shirqool aan inaba caadi ahayn oo la rabay in lagu kala dilo horumar weyn bay gaarnay maanta ayaa shirqoolkaasi fahmay isla markaana ka hortegey waxaan ku siinayaa haddaba faahfaahin bilow ilaa dhammaad kulamadii ugu dambeeyey ee ka dhacay magaalooyinka saylac iyo boorama heemaal kulamo ka dhacay iyo tuulada habaa sidaas si lamid a kulamo ka dhacay ugaas mustafe maxamed ibraahim oo iska diiday inuu ka qayb galo kulamadaasi una sheegay wasiirka arrimaha gudaha somalilan in ugu horrayn xeerka buugga ciise la fasaxo kadibna wixii kale layskaga yimaado ugaasku oo la socday dhaqdhaqaaqa habdhaqanka iyo sidoo kale qaabkay wax u wadaan somalilan ayaa la soo werinayaa inuu diiday inuu tago magaalada saylac magaalada diridhabe ayuu kulamo ka wadaa isagoo u sheegay cuqaasha iyo waxgaradka ka hooseysa inaysan qaadan wax talo ah oo ku saabsan waxyaabaha ay wadaan hargeysa shirqoolku waxaa la sheegay inuu ahaa in beelbeel loo kala qaybiyo beesha faca weyn ee ciise tusaale beesha degta xuduudda gobolka awdal iyo sidoo kale dowlad deegaanka ayaa la rabay in ugaas mustafe iyo iyaga la kala dilo waxaa sidaas si lamida la rabay in ugaas mustafe iyo sidoo kale cuqaasha kale ee magaalada saylac joogta iyo kuwa boorama jooga la kala dilo kadibna khilaafku marku uu dhasho laga dhex faa'iidaysto oo hub la siiyo beesha samaroon sidaasna loo burburiyo quwaddan xoogga weyn ee la yidhaahdo beesha faca weyn ee ciise xurmad leh ugaas mustafe maxamed ibraahim oo ah nin caqli badan ayaa la sheegay inuu u sheegay dhammaan xubnihii odayaasha ahaa ee salaadiinta ahaa ee garaadada ahaa ee mas-uuliyiinta kale ahaa ee cuqaasha ay ku jirtay in haba yaraatee kulamo isaga lagu matalaya aan lala hor fariisan karin wasiirka arrimaha gudaha somalilan waxay xoguhu tilmaamayaan in wasiirku uu sheegay inuu u baahan yahay inuu arko ugaas mustafe balse ugaasku wuxuu shuruud ka dhigay in beeshiisa la raaligeliyo oo buugga xeerka ciise la fasaxo wixii wada hadal ahna la iskaga yimaado waxaa jiray qorshe kale oo halisa oo aan isleeyahay alleelahe waa ay ka badbaaday beesha ciise oo ahaa in hubka laga dhigo ugaas mustafe maxamed ibraahim xurmadleh waxaa la soo werinayaa in uu iska diiday in hubka ay wareejiyaan ciidanka beesha ciise ee xoogga iyo xeeladaba ku jooga deegaanada heemaal xariida iyo sidoo kale habaas iyo heemaal waxaana wararku ay sheegayaan in ugaas mustafe uu sheegay in hubkan ay leedahay beesha ciise balse aysan lahayn beesha samaroon sidoo kale aysan lahayn somalilan adeer la soco in hubkan uu yahay hubkii lagu soo iibiyey lacagtii laga ururiyey waxgaradka iyo dadkayaga beesha ciise ma ahan hub ay somalilan la siisay haddii aan hubkan wareejinayno si xushmad iyo galgacal leh ayaan ugu wareejinaynaa jabuuti laakiin somalilan ma jirto wax huba aan ku wareejinayno ayuu yidhi xurmad leh ugaas mustafe maxamed ibraahim oo si kooban warbaahinta ula hadlay
dadka arrimahan la socda ayaa aaminsan in ugaas mustafa uu yahay nin caqli badan oo aan loo gamban karin isla markaana aan la gaadi karin isagoo oo la soo warinayo inuu si dhow ula socday dhaqdhaqaaqyada kala duwan ee ka imaanayay Somaliland iyo xubnaha kale kuwaasoo la sheegay inay xaaladda dab kale sii geliyeen khubarada aan la hadlay waxay leeyihiin ugaas mustafa shirqoolkan hadda waa uu ka badbaaday laakiin waa inuu mar kale iska ilaaliyaa shirqoollo noocaan oo kale ah oo weliba kuwa ka waaweyn ah oo la rabo in ugaaska lagu shirqoolo si loo kala dilo isaga iyo beeshiisa ciise haddaba daawade adigu sida u aragtaa bal aragtidaada qaybta commentiga inagaga dhiibo ama kaga agti dhiibo qodobadeena kale ayaynu eegaynaa markanna waxaan fiirinayaa suldaanka guud ee beesha Samaroon ayaa markan waxaa la helay cod kale oo qarsoodi ah oo uu leeyahay dhawaan waxaan heli doonaa hub ka imaanaya Somaliland haddaba waxaa cajiiba Somaliland inay tiraahdo mar beesha ciise hubka dhigto marna la yiraahdo waxa la hubeynayaa beeshii Samaroon dabcan arrintaasi way isqaban weyday wax macquul ah oo caqliga galaya toona maahan xubno sarsaro oo kamid ah beesha faca weyn ee la yiraahdo ciisaha waxay tilmaameen inay la yaab ku noqotay codka la helay suldaanka Samaroon oo leh waxaan la kulmay wasiirka arrimaha gudaha Somaliland iyo madaxweyne ku-xigeenka Somaliland labadooduna waxay ii sheegeen in aan hubka wareejin hub fiican la ku wareejin doono marka hubka laga wareejiyo beesha ciise ma waxay rabaan marka Somaliland inay hub ku wareejiyaan beesha Samaroon hubka dhigisna ay ku sameeyaan beesha ciise bal caqliga isqabadsi ma isdhihi karnaa beesha ciise waa la dulmiyey oo waa lagu takrifalay sababtoo ah beelweynta faca weyn ee ciise waa la dulmiyey markii hore oo xeerkii buugga ciise ayaa loo fasaxay mar kale waa la dulmiyey oo xeerkii buugga ciise ayaa laga kansalay hadda waxaa la leeyahay hubka dhiga oo waxaa la hubeynayaa beesha Samaroon bal kaale adigu isqabadsi daawade sheekadaas ayaa hadda soo baxday aniguse aragti ahaan ka khadar ahaan darajamidii ahaan haddii aan fikirkayga ka dhiibto waxaan leeyahay Somaliland walaalaha wada dhashay ee Samaroon iyo ciisaha dhexdhexaad ha u noqoto Somaliland waa dawlad jirta waa rag la aqoonsan yahay nabad ilaahay siiyey waa in ay u cadaalad falaan Samaroonka iyo sidoo kale ciisaha haddaad u cadaalad faleen labada reer wixii kala qabsada isku daaya labada reer wixii kala qabsada isku daaya laakiin haday daacad idinka tahay oo waxaan ay idinka tahay xaqiiqo adeerayaalow xushmad intaad muujisaan labada reer yaana loo kala dabqaadin labada reer si qurux badan oo wanaag iyo ixtiraam ku jiro ha loo kala dabqaado hadii kalena ninkii xoog leh ee xaajadu u toostaaye faraha ha laga dhaxbaxo waxa ay kala helaan aan aragno wasiirka arrimaha gudaha Somaliland waxaan leeyahay wasiiro nin odaya tahay da'ada 70 madaxa sii gelinaysa cimri tagay ceeb lagu mas'uutiyo warniyahow Samaroonka iyo ciisaha ha u cadaalad samee beesha Samaroon hubeynaya beesha ciisana hubkii baan ka dhigaya wax soconaya ma ahane bal inta dib iskugu laabatid aqalgaagu had shaqeeyo bal dib iskugu laabo oo labada reer ama u cadaalad samee ama ka dhexbax ninka Cabdiraxmaan Cirre la dhahana yuusan iyo dhiiqa ku gelinin anigu taladaas iyo quruxdaas aan siin lahaa Somaliland markana ciidamo aad hubeysan oo ka tirsan militariga dawladda federaalka ah ee Soomaaliya gaar ahaan kuwa la yiraahdo Kuufiya Casta ayaa goor dhow waxay ka degeen garoonka diyaaradaha magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool magaaladaasi waxaa la filayaa inay ka dhacdo xafladda caleema saarka Cabdiqaadir Firdhiye 15 bishan waxaa sidaas la mid ah la filayaa in magaalada Laascaano uu tago madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud hayeeshee 13 ilaa 12 bishan waxaa ka sii hormari doona ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre Aar iyo ciidamo uu wato iyo sidoo kale xubno ka mid ah golaha wasiirada oo waliba shirka golaha wasiirada ee khamiisle ah waxaa lagu qaban doonaa magaalada Laascaanood marka si loo fiiriyo waa dharbaaxo xoog leh oo ku dhacday Siciid Cabdullaahi Dani marka si loo fiiriyana waa guul siyaasadeed oo inaba aan caadi ahayn oo u soo hoyatay Cabdiqaadir Firdhiye maadaama Xasan Sheekh Maxamuud magaalada uu tagayo amniga magaalada si weyn loo adkeeyay wax walba oo magaaladaasi ka jira si caadi ah u socdaan dad badan oo arrimahan ka faalooda waxa ay leeyihiin Cabdiqaadir Firdhiye wuxuu haystaa libin siyaasadeed oo inaba aan caadi ahayn waana in uu markan ka faa'iideystaa amniga magaalada Laascaano ayaa si weyn loo adkeeyay
dhammaan gaadiidka dhinaca Somaliland ka imaanaya iyo kuwa dhinaca Puntland ka imaanaya ayaa si gaara loo baaraya howlgallo isdaba joog ah ayaa magaalada ka socda waxaana la filayaa magaalada inay martigeliso mufuud kala duwan oo madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawlad goboleedyada oo magaaladaasi tagi doona si ay uga qayb galaan xafladda caleemasaarka Cabdiqaadir Firdhiye oo halkaasi ka dhacaysa waxay ku soo kordhaa wadayaal waa inoo wararkeena dambe haday tahay markii kugu horeysay ku soo biri Daraja Media waxaad heli doontaa dhammaan wararka iyo warbixinada xasaasiga ah oo mar walba halkan aan ku daabacno aragtidaada qaybta commentiga inoogu reeb soo dhawow daawade sharaf iyo karaamo